Assalaamu calaykum waad salaamiya asxaabta. Hadday tahay markii koowaad ee soo booqatay YouTube-kan, magacaygu waa Cabbaas Jaamac Cali, waxaan ahay macallin dhiga luqadda Ingiliishta. Haddaad hore ugu xidhnayd YouTube-kan, fadlan waxaan kugu baraarujinayaa like iyo inaad kommentigaga wanaagsan nagula wadaagto faalladaada. Haddaan u soo noqdo muuqaalkan maanta, waxaynu ku dhigan doonaa preposition ama sameeleeye. Hore ma u taqaanay daawade waxaa loo kala isticmaalo of iyo by. Maanta ayaad ku baran doontaa casharkan. Haddaba aynu ku bilownay of maxaa loo isticmaalaa, hadhowna waxaan ka hadli doonaa by. Waayahay, of halkaa waxaa kaaga muuqata 4 qaab oo loo isticmaalo, wayna kasii badan tahay, balse 4tan waa 4ta ugu caansan. Waxaan ku bilaabayaa position. Position waa lahaanshiyo oo waxaad leedahay. Of waxaa loo isticmaalaa waxaad leedahay. Tusaale ahaan inaad tiraahdo oo kale, the mother of Sarah is a tall girl. Sarah hooyadeed waa gabadh dheer. Iyo inaad tiraahdo, the home of John, guriga John is down the street, waa xagga hoose wadada. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa of uncountable nouns, magacyadaan la tirin karin. Magacyadaan la tirin karin waxaan ka wadaa wax kasta oo aan la tirin karin, sida biyaha, sonkorta, ciidda, waxyaabahaasoo kale markaad sheegayso ayaa la isticmaalaa of. Tusaale ahaan inaad tiraahdo, drop of rain, dhibcad roob ah. Iyo inaad tiraahdo, a loads of people, dad fara badan, wadadaan la tirin karin. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa position of something, meesha uu shay ku yaal ama positionkiisu yahayna of waa loo isticmaalaa. Aan tusaale kaasiiya haddaba sidaad ugu isticmaali lahayd position of something. Of markaad u isticmaalayso shay meeshiisa ama bogcaddu degan yahay, waxaan idhi tusaale ahaan, on top of my head, madaxayga xaggiisa sare, on the back of the wall, xagga dambe gidaarka. Markaa positionkiisii meeshiisi baan sheegayaa, qaybtaana waa loo isticmaalaa. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa contents of something, shay waxa ku dhex jira, what inside in something. Tusaale ahaan inaad tiraahdo koob biyo ah, inaad tiraahdo kartoon kaba ah, inaad tiraahdo jabcad biyo ah, waxaad sheegaysaa wax meesha ku dhex jira. Oo aad tiraahdo book of poetry, buuggii gabayga. Markaa buugga maxaa ku jira, gabayaa ku qoran. Inaad tiraahdo barrel of water, quraarad biyo ah, quraarada biyaa ku jira. Inaad sidoo kale tiraahdo box of clothes, kartoon dhara, waayo kartoonka waxa ku jira dhar. Intaa inaad ila fahantay ayaan jecelahay. Bay ayaynu u gudbaynaa haddana.